السلام عليكم ومركلة يا عشرتنا تيورية ونوغا براتين إن شاء الله إن اسكو إن شرحات إله يدمو إن عشر كان وحو دوس عندنا كي هراء وأها بورركا لكن كان صبر قوة إله يدمو إن سان أركنو إن شاء الله تعالى سؤال شوحي لذا باويلك splits in motobestuurders van links verwachten dhankee ama qaybtee baad ka filaysaa darawaliin in ay kaaga imaadaan dhanka bidix saad aragto qaybta aaga ah boorka waxaa suran oo inrichtingsweg ah haddana flaarta dhanka bidix ayaa lagu aadiyey so dhanka bidix cid wax wadata oo waa bestuurder ama waa darawal ma kaaga imaan karto insha allah laakiin dhanka midig haa midka kaliya ee dhanka bidix iyo dhanka midig ama dhan walba oo lagaaga imaan karo waa midka b-ga ama bayga ah kaa adi unbaa lagu amray laakiin dhankii lagu diray iyo dhankii lagaa dirayba waa lagaaga imaan karaa wax darawal ah ama bestuurder ah way kaaga imaan karaan so dadka qaar waxa ayaan filaya inay ka fahansan yihiin su'aalahan oo kaleete dhankee ayaad u laaban kartaa oo kale maaha sida laakiin dhankee ka filaysaa in wax darawal ah ay kaaga yimaadaan insha allahu tacaala marka hadda su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa lane splitting bay kaliya qaybta bayda ah ayaa dhanka bidix ayaad ka filaysaa darawal midda kale sawirkan dadka qaar waxay aan filayaa inay ay u fahmeen in ay tahay hal wado ma hal wado waxaa laga wadaa tanna aada waa wado kale tanna bayda waa wado kale yani sawirka unbaa la isku ag dhigay yani qofka kale dadka qaar waxay iska dhadhicin karaan midka haddii aan lagaaga imaan karin sidee bay lagaaga imaan karaa so waxaa dadka qaar ay u fahansan yihiin in qofkii inta kasoo baxay la inta isku mari kara taa macnaheed sidaa ma insha allah waa laba wado oo kala gooni ah oo laakiin hal sir laga soo qaaday hal midna lagu soo dhigay ayay ka dhigan tahay insha allah waxaan u gudbaynaa hadduu ilaahay idmo su-aasha xigta su-aasha xigta asna waxaa la yidhi bij welke splitsing moet u bestuurders van rechts verwachten dhankee ama qaybtee ayaa wax darawal ah ku khasban tahay inaad ka sugto ama aad ka filato dhanka midig marka haddaan fiirino dhanka midig waa dhankan dhanka midig waa dhankan hadduu ilaahay idmo so maadaama dhanka midig ay tahay dhanka midka horta b-ga ah ama waa wareega mar walba waa dhan midig iyo dhan bidixba waa lagaaga imaan karaa laakiin flaarta waxay fiirinaysaa dhanka bidixda fiirinaysaa dhanka b-ga waa lagaaga imaan karaa so marka waxaa leenahay hadduu ilaahay idmo bij welke splitsing moet u bestuurders van rechts verwachten dhankee ayaad ka filaysaa darawaliin dhanka midig inay kaaga yimaadaan so bay waa laba jeerba waa lagaaga imaan lahaa hore iyo gadaal iyo amaba dhinaca midig iyo amaba dhinaca bidix insha allah marka flaarta dhanka eegayso waa dhanka midig marka waa lagaaga imaan karaa su-aasha waxaan qanay marka splitsing and bay insha allah waxaa idinla talinaya insha allah mar walba su-aasha kaliya inaad isku dayin inaad fiiriso ama aqriso ama aad fahanto sawirkan inaad fiiriso isku day waxaa u gudbaynaa insha allah su-aasha saddexaad hadduu ilaahay idmo su-aasha saddexaad waxay leedahay markan boorka wareega ahaa waa laga bedelay waxaa lagu dhigay boorkii ahaa omlidinka aan usoo qaadanay horay oo jaalaha ahaa marka waxay ku leeyihiin marka bij welke splitsing moet u bestuurders van links verwachten dhankee ayaa darawaliin ka filaysaa dhanka bidix inay kaaga yimaadaan laba jooro midka aaga ah weli wuxuu fiirinayaa dhanka bidix so marka dhanka bidix flaarta dhankay kuu dirta weeyaan soo cidna kama filaysid insha allah
midka bayga ah waxaan hore aan u sharaxay midka jaalaha iyo boorarka wareega ah waa isku mid jaalaha asna wuxuu ka hadlaya keliya inay tahay online in adiga un yani wado laga hagay ama jiha laga hagay laakiin kuma khasbanid inaad dhankaasi aad u leexato haddana waxaad ka filaysaa dhanka falaartay kuu dirtay inay gaadiidkaaga yimaadaan isna sidoo kaleto dhan walbo waad ka filaysaa gaadiidka insha allah ama waxa loo yaqaano waa stewardess su-aasha waxay leedahay dhankee ayaad ka filaysaa darawal inuu kaaga imaado dhanka bidix waxaa inoo saxan bay keliya bay ayaa dhanka bidix lagaaga iman karaa dhanka aaga ah cid kaaga iman karto ma jirto waxaan rajaynayaa su-aasha ugu dambeyso in aan u gudbeyno kana sidoo kale bywelka splitsin mutubstudas van links verwachten bywelka splitsin mutubstudas van links verwachten hadda splitsin a ama qaybta aaga falaarta waxaa loo diray dhanka midig bayga ase haddii dhanka midig ama dhanka bidix ama dhanka hore loo diro inaad ku tashato maaha maxaa yeelay dhan walba waa lagaga imaan karaa dhankii lagu diray muhiim maaha so muhiimadda waxay tahay aad ku tashanayso midkan afar geeska ah oo loo yaqaano inrichtingsweqa dhanka falaarta loo diray hadday tahay dhanka midig waa iska ilaalinaysaa haddii dhanka falaarta loo diray dhanka bidix waa iska ilaalinaysaa lagama macnaha qofna kaagama iman karto so hadda wuxuu leeyahay qaybtee ama boorkee dhanka bidix gaadiid ama darawal ka filaysaa waa labadaba maxaa yeelay a dhanka midig ayuu eegayaa dhanka bidix darawal waad ka filaysaa bay dhanka bidix ayuu fiirinayaa kaas kuma tashana kaas in lagu tashta maaha waa wareeg so dhanka midig dhanka bidix waa lagaga imaanaya insha allah tacaala marka maxaa leenahay bybyda splitsin labada qeybood ama labada sawirba dhanka bidix waad ka filaysaa waxa loo yaqaano waa darawal marka insha allah tacaala waxaa filaya in aad wax ka fahanteen hadduu ilaah idmo ama aad ka fahmi doontaan waxaa inuu xiigi doono su-aalo kaleeto oo adag oo dadka inaas leeyahay dhib ayay ku haystaan insha allah tacaala ama macnaha bay ku adag yihiin insha allah tacaala waan idin salaamaya dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu